بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن غيارتا حوضا نقد داون يسايد الهان تيمبا ميل والبود دون الجوكتاني يسوي البود نود داون يسان هل كان يوتيوب كليبان كولو أنا قلنا وحنا هاي ليبان waxay la joogaa isla markaana halkan waraysi uga qaadaya cali cusmaan aadan cali aadan cusmaan aan idhaahde oo isagu ah sarkaal ka mid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya in cali kusoo dhawo barnaamijka liibaan kulow aad baan u dhowahay waraysigana waa kaaga mahadcelinayaa marka aad baan u dhowahay cali haddii aan ku bilaabo Soomaaliya hadda waxay u dhaqaaqday dhinacii doorashooyinka gudaha marka aad fiiriso adiga maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka ay wax u socdaan ama maamulada qaar ay wax u soo xulayaan horta liibaanow doorashadan doorasho muhiim ah ay ahayd doorasho Soomaaliya oo dhan ay u hanqaltaagayso oo maxaanku yidhaahday qofkeeda yar iyo qofkeeda weyn ay u taagan yihiin la sugaayay maxaanku yidhaahday la rabay si nadiif ah yaa wax qaban kara yaa waddankan wax u qaban karo Soomaalinimada run ka tahay oo waddankan lagu aamini karaa aan rabnay laakiin inay doorashada u dhacda marka aan ka soo bilaabo senatarada marka aan ka soo bilaabo ilaa iyagaa soo horeeye ma fahantay senataradaana la rabay dadka dooranaya inay u fiiriyaan Soomaaliya wax u qaban kara yaa dhiig leh oo kacaayo waddankan dadkiisa iyo waddankaba wax badan ay foodo ku soo jireen badow baylah ka yahay birrinuu baylah ka yahay hawow baylah ka yahay annagu ilaahay nagu abuuray oo Soomaali ah inaan badbaadina annagana laga rabaa marka in aan danaysi waddanka haddii la danaysan lahayna qofkii soo danaysan lahaa waa danaystay qofkii Soomaalinima iyo waddaninimo ay ku jirtana waqtigu sugayaan filayna horta inay doorashadan u dhacayso laakiin markaan ka soo qaado Jubbaland Axmed Madoobe meeshiisa oo isagu xukuman ka wada ee Kismaayo laga soo bilaaba doorashadii ka bilaabatay qaabkay u dhacday dad badan ayna cajiibeen waliba waxa way niijabay nagu ridii xaqiiqdu markay la yiraahdo dad soo daalay la tijaabiyay taariikhdooda aan ognahay Soomaalinimada meesha ka taagan aan ognahay adib soo noqday aan la filayn tan waxay calaamad u tahay sifadii jugjug meeshaadi joogtay inaan taagannahay laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala mid waddankan u heeliyo kursigiisa inuu ku fadhiisto madaxweynaha kaliya sheegayo hataa baarlamaanka ilaahay idinkiisa waa gartay cali waxaa tiri dad hore u soo daalay oo hore loo soo tijaabiyay haddii sida ay sheegaan maamulka Jubbaland dadkaas laftirkoodu ay tartameen xaqoodina ay qaateen oo ay nasiib u yeesheen in markale soo noqdaan maxaa ku jiro talyaaniga wuxuu yidhahdaa kii kumaandadii falleejo sidaan doonaan samaynaa soo ma sidaas unbay ahayd hadda qanaca waa lagu qanacsan yahay aad leedahay horta reer Jubbaland dadkeeda inay istaageen ma dhihin wixii dhacay waa ku qanacsannahay dadkii la soo aruuriyo meeshii yimid ay yidhi waa ku qanacsannahay magaalada Baydhabo oo kale markii hadda la qabanayo doorashooyinkii senatarada musharaxiintii amaba candidatekii halkaa ka soo baxay dhinac ka mid ah dhinacyada Soomaaliya siyaasadeeda isku haysta waxay u arkeen inay ahaayeen wax hal dhinac ah hadda waxaa soo dhow qabsoomidda doorashooyinkii senatarada aqalka sare ee Hirshabeelle iyo maamulka Galmudug iyaga maxaa laga filan karaa wallahi xaqiiqdii markii la yiraahdo Soomaalida waxay tiraahdaa maxaan ku yiraahday weesha gowrac dibiga xaquuste sidaas oo kaleeta nimankii shalayta annaga aan ogeyn heshiiska ay saxiixeen ka noqon jiray gruubyada ahaa culayskii Soomaaliya hadda lagu soo siyaadiyo doorashada ka yimid waa tahniideen laakiin annaga waxaan tahniideynaynaa markaan aragno ficiladii hadda dhacay wax ka duwan oo Soomaaliya kabaaya oo hore u socodsiinaya markaan aragna laakiin waxaan ku dara waa waxaan jeclaan lahaynaa waxa ka hadlaya waxaan u malaynaa marka aniga waxaan u malaynaa waan ku ogahay Hirshabeelle ama Galmudug dad Soomaalinimada u heeliyo waan ku ognahay waan ku naqaanaa bardo insaanka qalad uusan ka tagayn weli intii Soomaaliya mashaakilkan gashay waa loo dhan yahay oo sacabka loo garaa weli ma arag looma dhammaan maqli jirin لكن إلهي وحن كرجينا إنه سبحانه وتعالى
inta aad sheegtay waa loo dhan yahay inay ka dhacdo annagana aan ku qancaan iyagana ku qancaan soomaalina ay ku qanacdo laakiin waxaan isleeyahay xirag jiidka hadda aan arkayna ma wanaagsana waase talaan dhiibaa labadaa hadda aad sheegtay ama soomaali oo dhanba warroy waxaad yeelaysiin dadka haddaan meesha ku aragnay dad cimri ay u badan yihiin tartamaaya ilaahay ugu xishooda ummaddaan ilaahay ugu xishooda jidka wanaagsan wallaahi baan ku dhaartay in hal maalin aan lays khalaafeen haddii danta guud laga hadlaayo waxa la isku haysto waa dantan gaarka warroy danta gaarka inaga daayo war ilaahay ka yaabo danta gaarka inaga daayo laakiin waxaan leenahay rabbi khayr waxaanse ku daardaarmaa raggaan meeshaan ku tartamaya meesha danta shakhsiga ay ka raadinayeen dantaan caanta ha raadiyaan danka caamka ah oo caamka ha raadiyaano soomaalina ha weheliyaan saasaan leeyahay dadka indheindheeya siyaasadaha ama falanqeeya siyaasadda soomaaliya marka ay timaado maamulada hirshabeelle iyo galmudug waxaa la isku haystaa dib usoo noqoshada qaar ka mid a senataradii hore iyo qaadashada kuwa kaloo cusub adiga shakhsiyan ka siyaasi ahaan aragtidaas labadaas aragti midaad aaminsan tahay anigu waxaan aaminsanahay dadkii la tijaabay inayna dhaafaan sidoodaba waa wixii baarlamaanka ama maxay ahayday bardu waa la helaa in soomaalinimada ay run ka tahay waa la helaa oo kulligood dehi maayo laakiin waxay u badnaayeen group isku xiran oo group ay u badnaayeen baarta waxaan la yidhahda ay u badnaayeen baarta intay meesha jirto waxaan arki jirnay feri mathalan xisbi marka la isku raaco way fiican tahay xisbigaas oo ah dhaliishii dowladdana sheegaya wuxuu ka hadlaya in ay run yihiin bardu siyaasiga badana waxay yidhahdaan run ma sheego laakiin haddana waxaa la rabaa qofku waddanka u heelanayo feri hadda dunida kale qaybo ka mid ah amase dunida siday u badan tahay dunida ilbaxa ah marka waddankan lagu soo duulo oo bannaanka loogu yimaado fargelin shisheeye ay timaado mucaarad iyo muxaafadba dhinacayna wada aadaan oy waddanka difaacaan oy dadka difaacaan ma jirto kuwa diyaarado lagu duqaynaayo oo la laynaayo oo soomaaliya xoolohoodii la laynaayo oo dadkoodii la laynaayo ay leeyihiin maxaan ku idhahda waa saxan tahay qof soomaaliya hadduu warar socdana waxay leeyihin waa qaldan yahay marka waxaan leenahay annaga haddaanu soomaali nahay waa hadalnay horaan u hadalnay haddaan hadlaynaa waddankaani dadkiisa hil ay u baahan yihin u heliyo senatarada kuwii aan naqaanay kuwaan farta ku gudanto ay calaamadda saaran tahay hana daayaan ha baxano kuwii aan leenahay soomaalinimaday ku dhawaayeenna hadday soo noqonayaan macalish laakiin tartan saxa waa inuu galaa waa garta dhinaca kale magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa jira dhowr maalmood ama maalmihii lasoo dhaafay ilaa hadda soconaya khilaaf soo kala dhexgalay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee soomaaliya oo dhinac ah iyo dhinac kale oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyada sidee wax u jiraan baa isleda anigu waan dhegeysanaya hadda shalaytoo kaleeto inay jimcadii ahayd inay khamiisteeda hadda ma kala aqaano maxaan ku raha bishan shanteeda ama afarteeda meeday ku beegneed ma aqaano hadda ma caddayn kara laakiin saas ay ila ahayd ama shantii ama afartii midkood cabdi xaansho hadlaya waa arkaya cabdi xaansho horta waxaan dhihi lahaa nin oday waayo soomaaliya waa u soo shaqeeyey midnimada waa aaminsan yahay laakiin asagaa nin weyn waaya waxaa laga rabaa inuu dulqaad muujiyo hadallada taagtaagan oo mar walba soo baxa xanafta wato waa laga fiican yahay da' waaya marka anigu waxaan dhihi lahay mathalan hadda fiiri ragga dhan waqooyi ay ka wada yimaadeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa mid asagana waa qayb aan dhihi rabaa waa qayb marka labadan qaybood anigu waxaan dhihi lahay in tanasulaad la bixiyo ninkaan oday waayo waa soo shaqeeyey da'a lagu jiraa da'da nafteeda waa inuu ku xisaabtama soomaalida waxay tidhahdaa da'da malakamawdka ay ka mid tahay da'da malakamawdka waayo waxaad cuni jirtay ma cuni kartid saad ordi jirtay ma orday saad u socon jirtay uma soconaysa tan marka waxay kutusaysaa calaamadan da'da iyadaa malakamawdka ka mid ah marka adeerow waalidaad tahay sumcad xumaha ka tegin sumcad xumo waxaan qabqabsigan faraha badanta mooryaanta lagu yaqaanaa tanasulaad bixi ninka hadda ay isku dhegan yihin ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa dhali karaa waa hubaa waa dhali karaa marka waxaan dhihi lahaa deganaasho inuu muujiyo odaynimo muujiyo ul odayaadaa loo dhiibo ushii odayga yaa inuu ama dhiibo ama si saxa uu ku qaato soomaalida ilaahay idinkiis aanna jecelnahay in meel walbaba ma ujeedaa si kalsooni ay timaado aniga laakiin waxaan leeyahay hadalla taagtaagan ilama wanaagsana waa garta dhinaca kale waxaa jirta sheekada ikraan tahliil oo ah gabadh soomaaliyeed oo nabad sugidda soomaaliya u shaqaynaysa
ku dhawaad haddana ilaa 2 bilood la la'yahay geeri iyo nolol midna toona adiga aragtidaada marka aad fiiriso ikraan xaggee loo malayn karaa inay ku maqan tahay horta ikraan aniga ilaahay baa og xamar ma joogaan saudi arabiyaan joogaa laakiin waxaan fiirsaday meesha laga wadaayay kamerada siday u qabatay ayaan arkayay horta meesha laga watay meel ammaan oo dowlad gacanteeda ku jirta ay ahayd ismalihi hadda halkaas in looga soo dhacay ayay niman kala wateen ismalihi maamulkan dowladda ha kala sarreyn oo sugada ha ahaata booliiska nafteeda qayb ay leeyihiin sida dudishaariyada qoladii la dhihi jiray oo kaleto way leeyihiin karabinaal uu dhihi jiray talyaaniga bardu way leeyihiin qoladaanaba sugada way jirtaa bardu dad shaatiga dowladda wax ku hadlayana way jiraan laakiin anigu waxaan isleeyahay gacanta dowladda jirtaa gabadhaas jidkii loo rabay oo in laga hadla macnaha jidkii loo rabay oo wax sidaan oo kaleeta markay dhacaan loo mari jirina looma mari maan leeyahay haddii baad ku tuumayso inay dhinaca dowladda jirto dowladdu miyay awoodi weyse in ay bal xaqiijiso inay gacanta iyada ku hayso gabadhan la la'yahay sidoo kalena xaggee ku dambeeyey guddigii loo magacaabay arrinteeda oo sida loo magacaabay aan warkiisa dib loo helin horta marka aad tidhaahid gabadhan markaan ka soo qaadatay aan idhi gacanta dowladda ay gabadhan jirtaa jidkii loo baahnay in loo marana looma marin aan isleeyahay daahidan hadda ay daahday waxay kordhinaysaa shakigii iyo calaamadihii gabadhan xaggeeda rajadii laga qabay ay xumaanayso xaqiiqda markii la yidhaahdana hay-adaha dowladda ay ceebna ku tahay maxaanku yidhaahdaa ay kalsooni xumona waa abuuraysaa marka aniga waxaan leeyahay ikraan gacanta dowladda ay ku maqan tahay ciidanka dowladda gacantiisa ay ku maqan tahay waxaan leeyahay in sharciga la ilaaliyo oo takrifal aan la samaynin burburkii dowladeed wixii keenay shaarka dowladda oo beenta loo qaadanayo oo dadka lagu dhibaataynayaa keenay tiina wixii laga dhaxli waa la ogyahay shaatiga maanta haddaad waddo birri aadan wadanaynin haddaad wax ku gashana shaatiga dowladda ku ilaalin doona ma aha dakana in la gala gabar dhiloo 23 jirta guri lagala baxa meel ama lagu xirto aniga u malayn maayo qof Soomaali oo mas'uul ah oo shaati dowladeed wax u masaabaxaya ma arkayna waayo qofka dambi waa geli karaa ha yaraada ha weynaado qofka dambi waa geli karaa dambiga 24 saac ma dhaafsiisan 24 saac qofka bacdigeed meela lagu salama ama gaal shira loo gudbiyaa waxaan waaranka la yiraahdaa loo jaraa maxkamada laga qaadaa maxay ahayday ama waa la sii daayaa haddii hadda sida ay arrinteedu tahay ay wax iska bedeli waayaan oo labadan bilood intay dhammaato haddana waqtigu sii kordho dadka ehelada u ah ikraan maxaa la gudboon aniga waxaan isleeyahay horta mar walbaba deganaashada nafteeda waxaa la yidhahdaa sabarka naftiisa xaduud uu leeyahy sabarka naftiisa xaduud uu leeyahy dadka aad arkaysana soomaalida badanaa sida lagu yaqaano soomaalida way isxansataa waana xasataa waana isxamataa xanta dhinacay u badantaa waa la yaqaanaa hadda waxaa jirta masalan waxaan sharci ahayn aan nidaam ahayn ilaahay agtiisana aan ka habboonayn ama diiniyan islaamnimo aan u habboonayn ay badanaa soomaalida ku kala qaadataa maxaan ku idhahdaa dakanada ay maarata ku kala samaysaa waxaasna wax fiican maaha qof dembiga aan gelin qofkaasaad ku hayb tahay in la yidhaahdo oo loo qabsada ma aha laakiin aniga waxaan leeyahay qofka hadda maanta qof nool waalidkii dhalay ee xaadir yihiin oo joogaan oo qof iyaga u shaqeeya inta gacanta ku dhigay malcuumaadkeeda iyo raadadkeeda waxaa ka mid a waxaan maqlay xataa laptop hore u soo qaaday soo dhaqaaq laptop inay wadata iyo meesha laga qaaday iyo soo bax waxaan u malaynaa si kasta haddaa yeelaan dowladda ma dhaafaysa ciidanka dowladda taas ka bixi mayso iyaga waaye anigu waxaan leeyahay mas-uuliyadda hal ilaala gabadhaan hala dhiibo haddayse diidaan oo qof walba uu yidhaahdo aniga gacantaydaan sharciga ku qaadana ciddaan gabadha ay ka dhalatay haday sharciga gacantooda ku qaataan wax u diidaya male wax u diidaya male ololaha doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose markay soo idlaadaan dabcan waxaa lagu soo biyushubanaya magaalada xamar waxaa jiri doonta in la dooran doono guddoomiye cusub oo baarlamaanka ah guddoomiyahaasna uu magacaabi doono guddi doorashooyinka qaabilsan marka loo yimaado tartanka doorashada dhinaca madaxtinimada ee soomaaliya musharax aad is leedahay ugu dhow yahay aragtidaada yuu yahay
aniga ehel u fiirin maayo deegaan u fiirin maayo ra'yigayga soomaalinimada mas-uulnimada odaynimada ayaan ka hadlaanay xaqiiq anigu waxaan isleeyahay soomaalida waxaa la yidhaahdaa faqi tulkii kama janno tago waxa la yidhahdaa mamaha jirto ma maqlay faqi tulkii kama janno tago haddii aan qabiil iskugu xirreennay oo aan jifi noqonnay waddankaana lagu dumiyey waana dhisi waayey jifadii waddankaa waa lagu dhisi waayey soomaali wada socoto markaanu ahayn ee dariiqaan wada marayn hamiga ahaa dowladnimo aqoon markay ahayd waddankan heerkuu maraya waa loogyahay kala daadsanaantii iyo qabiilkii loo qaybsamay waa wixii dumiyey hadda aniga qabiil loo fiirin maayo oo ilaahay baa igu qabiil u fiirin maayo aniga waxaan isleeyahay horta ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala asagaa casiis ah kariim ah qaadir ah qafuururaxiim ah waaxidul axad ah qof khayr qabo oo ilaahay og yahay asagaa wax qarsoonna og wax muuqdana asagaa og waxba ka qarsooneen ilaahow nin meel kale ku xiran ha noogu dhiiban waddankan rabbiyow adaa qaadir ah maxaa yeelay waa daalannahay soomaali oo dhan maa nahay hadday qurbo joogaan iyo hadday waddanka joogaan ilaahay horta subxaanahu wa tacaala laakiin intii la soo mariyo hadda aan soo aragnay oo qaarkood sirada ku soo jiraan anigu waxaan isleeyahay yaa dooran lahayd labadina haddii la dhaha ninka hadda haystaan dooran lahaa warkaygana waa dhaya waa garta laakiin ogow meeshu waa soomaaliya taariikhdana weli lama arag madaxweyne mar qabsaday xukunka oo mar kale kusoo noqday cod ama doorasho ku yimid oo soomaalidu waa dad jecel mar walbaba inay waxa cusub la qabsadaan taas miyaan in la tixgeliya ahayn horta wixii soomaalida caado u lahayd iyo waxa aniga aan anigu rabo labay kala yihiin hadday tahay hadda ka hor qof maaragtay mar doorasho helay mar labaad ma soo noqdo hadday tahay waa ku aragnay soomaalida taas beentaa ma aha ugu dankeri maayo marka aniga dhinaca kama fiirinin waxaan ka fiiriyey waxay ahayd kursigan intii hadda lasoo arkay aniguma diidana soomaalida farmaaja ugu fiican dhihi maayo laakiin intii lasoo arkaan ka hadlaa aniga intii lasoo arko lasoo tijaabiy ma garatay anigu waxaan isleeyahay muuqaal fiiri masalan anigu marmar dadkaan la kaftamo waxaan yidhahdaa nin oo waxaan arkaa sheeka nuuc min alqabaa'il u hadlo waxaan yidhahdaa awal waxay dhihi jireen waxaad maqlaysaan been waayo hadda waxay leeyihin waxaan u jeednahay been waay leeyihin wax la qaadan karana ma aha ma garatay aniga waxaan isleeyahay intii lasoo maray ninkii ugu ronaya ninka xagga ciidanka dhegaysaad xagga ciidanka diidmada dowladaha kale uu hadalka ku diidayo uu ku celin wuxuu yidhi ninkii wuxuu yidhi inaan diidi karayeel in uu dhahayo war waxaad ii sheegtay ma yeelaayo waa garta okay cali waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka ka hor inta aan la xirin maxay tahay fariinta aad jeceshahay inaad u gudbiso shacabweynaha soomaaliyeed ee ku daawanaya shacbiga soomaaliyeed waxaan u gudbinaa waroy qabiil aad noqoteen waddankii aad ku dumiseen dowladdii aad ku dumiseen raadka ay reebteen waad ogtihiin wax ka nabadgalay ma jiraan haddii laga nabadgalo wax ka nabadgala jiraan yaa nolol nabadgal lagu raaxaysta ma aha qofka markuu amni haysanin shaqo haysanin qadamaat alcaan oo dhan waxaa ka mid ah isbitaalkiyaa ka mide waxbarashadiyaa ka mide biyihiyaa ka mide maxaan ku idhahda qadamaat alcaankii oo dhan jidkiyaa ka mide haddaadan helin mar walba xabadda agtaada ka dhacayso yaa waxay tahay nolol raaxale ma aha masalan hadda ka hor sheekaan sheegay oo dad badan ay yidhaahdeen ka warran waxaan yidhi xooluhu saddex shay hadday yihiin wax ka soo qaadi ma laha xoolaha haddaadan nabad ku haysanin caaw lacagta meeshaan kuu taalla aadan nabad ku ama albaabka lasoo garaaca qajaf soo yeertabaad oo meelaad u dacwotana aadan helaynin wax nafoy leeyihin malaha faa'ido ma laha haddaadan cuni karin oo caafimaadka kuu diido ood cuni weyso lagu yidhahdo bakerigan ama saxankaan haka badsanan raashin wax qiimo ay leeyihin ma haddaadan sadaqaysan karin sabiilillaahi aadan wala bixi karin waxaa la ii sheegay rabulkacba inaana been sheegayn waxaa la ii sheegay nin soomaaliya jooga oo qabqablayaashii dagaalka ka mid ahay nimay ilmaadeer yihiin oo sacuudi arabiya jooga lacagan kusoo xajiyey ii soo diray inuu yidhi lacagan kusoo xajiyey weliba nin la yaqaano magaciisaan diidana ma garat lacagan kusoo xajiyey ii soo dir katarabiilada u xaraysanna kaala arag nujeedaa marka adeer kuwaas faa'iida ma laha xabad qubisahood cuntid karfanta lagaaga gadi karo markaad shaqaysato dhididkaada ah
qiimo leh waray xoolaha intaad ku ordaysiin war xoolaha intaad ku ordaysiin xoolo miyaadan qiimahooda aadan aqoonin yaa dhul aad aadaysaan ilaahay ka cabsada waxaad sadaqaysan kartaan shaqaysta ma fahan waxaad xiran kartaan guri dad laga dhacay ninkii laga dhacay la dulmay ama la dilay ama naf u cararay inaad ilmo ku dhashaan ood ku korisaan kuwaas idin duugi maahayn anaa idinka ballan qaadaay idin duugi maahayn ilaahay u noqdo xishooda soomaaliya waxaana idin leeyahay gacmaha isqabsado soomaaliya gacmaha isqabsado fursadaa jirto fursaddan yaa la dayicin fursadaa jirta fursaddan yaa la dayicin waa hagaag daawadayaal si walbood noo daawanaysaan iyo meel walba ood naga daawanaysaan intaasina waxaa ku dhan waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay sarkaal cali aadan cusmaan tani intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ah hawada mar kale ugu kulmi doono waxa aanu idin leenahay innaga oo isku duuban iyo weliba saaxiibkan abshir oo isna caawa filimkan naga duubayay guud ahaanteenba ama wadajirkeenna waxaanu idin leenahay fi amaan illah maca asalaama